السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا وسينب كانال caawa waxaa rabaa inaan idin la wadaago qiso cajiib ah oo la yaab leh oo ani ahaan markay akhrinayay saameyn igu yeelatay aad jeclaystay inaan idin la wadaago. Soo dhawaada. Qisadu waxay tahay hadda ka hor magaalada Royston ee dalka Mareykanka ayaa waxaa istaagay tareenkii markuu istaagay kadib waxaa kasoo degay nin iyo naag oo isqabaan oo duqyaal ah. Marka ayaga waxay wateen dhar oo rebaadi camal ay naagtu waxay wadatay jaaktiin oo ka samaysan suufka, ninka asagana sidaas camal dhar oo iska tawaaraysan iska wateen. Way soo baxeen tartiibtooda waxay soo aadeen jaamacadda Harvard. Markay meesha tageen waxay rabeen inay la kulmaan maamulaha jaamacadda Harvard. Markaas waxaa ka hor imaatay sekretarkiisa ama gacanyarihiisa. Waxay dhahday halkaa u socotiin. Waxay ku dhaheen marka anaga waxaa rabnaa maamulaha. Waxay ku dhahday maamulaha wuxuu ku jiraa shir ku jiraa idinkana idima faaruq ahan waqti la'aan shir dadka uma imaadaan iska baxa wax idin qaabilay ma lahan kari hoos inta ka fiirsay isaas ku dhahday. Bis kadib waxay ku dhaheen si qanacsan oo tartiib oo degnaan ku jirto anaga waa sugeynaa ilaa maxaa lahaa uu ka soo dhamaanaa inta fariisanayna ay ku dhaheen. Bis kadib waxay ku dhahday waxay maagtay inay la hadasho dhowr meer la hadashay. Waxay dhaheen may anaga waa sugeynaa ilaa salaad subax si walba ay yeeshay gabadha sekretarada ahayd way qanacin weysay. kadib way isu cuntay way xanaaqday haday wax su'aal weydiiyaan xataa way iska indha tireysay haday cabaar markay isku jirto kadib waxay ku qasbanaatay markii dambe inta xanaaqday is celin weysay waxay u gashay maamulihii soo shir ku jiro kadib maamulaha wuu xanaaqay wuxuu ku dhahay sidee aniga dad oo maxaa lahaa oo shirkeyga oo macna u soo dhaxgelin kartaa uu ku qeyliyay kadib waxay ku dhahday mudane dadkan ilaa saaka ay joogeen qoraxda markay soo baxday ilaa hadda ay joogeen inay kula kulmaan rabaan kadib wuxuu ku dhahay waay soo gali 5 daqiiqo kaliya siinaa kadib way u galeen markay u galeen qaab deganaan ku jirto oo weynaan ku jirto waxay ku dhaheen maamule anaka jaamacadan 1 sano oo dhameystiran waxaan u dhiganay wiilkeena marka wiilkeena uu dhintay waxay dhaheen wiilkeena uu dhintay marka haddana waxaa rabnaa inaan jaamacadda wax ugu deeqno hanti ugu deeqno lacag ugu deeqno si wiilkeena magaciisa jaamacadda aysan u hilmaamin oo magaciisa oo khaalidan makhluudan oo ahaado magaciisa jaamacadda uu ku dhaxwaaro marka ninka maamulaha ahaa wuxuu u maleynayay inay rabaan in wiilkooda taalo in loo dhiso oo la yaab noqotay kadib naagta warkeeda asaga mana wax saameyn ma ku yeelanin dadkan si u yeelan ma ku arkay asaga uu yeesay kori hoos u ka fiiri warkay sheegaan haddana uu ku dhahay waxas macquul maahan ma dhici karto wax dhici karana ma lahan jaamacadeena meeqa ilma dhinteen meeqa oo dad magac leh ilma ka dhinteen waxaasna wax soconay maahan amal bis kadib waxay ku dhahday anaga saas ma rabno anaga adin waxa u malaysaa inaa taalo arabna inaa wiilka loo dhismay anaga waxa rabnaa inaa jaamacadda hanti ugu deeqno hantidaas oo campus weyn la dhiso ama qayb weyn oo jaamacadda ay isticmaasho ay ku tasarrufto oo ardaydeeda ay ugu dhigtaan laakiin kan meeshaas iyo qaybtaas weyn wiilkeena magaciisa loogu magacaabo oo jaamacadda ka tirsan bis ninkii wuu ku jeesjeesay wax macquul weelan qoys wuxuu dhahay horta ma ogtahay meeqa ku baxday jaamacadda dhismaheeda marka waagaasna waxay ahayd qisad ay dhacayso 1884 ahayd dhismaha qaar waxaa laga galo dhahay 7 milyan dhibic 5 marka macquul kula taho dhahay lacagtaas adina hadda waxaa soo taagantay inay dhahdid wiilkeyga waxa uu rabaa inaa u dhiso maxaa la qayb weyn naagtii way aamustay ninkii maamulihii way aamuseen shib marka ninkii maamulaha wuxuu ku fakarayay uu isdhahay naagtan waa aamusisay haddana waa iskaaga ka tegi doonaan ama iska bixi doonaan bis naagtii markay cabaar aamusneed ninkeeda ku jeesatay waxay dhahday Mr. Stafford kawaran hadaa wiilkeena u dhisno jaamacad ka weyn oo magaciisana ku qorno
bas wax ku dhahay fikrad fiican waaye namari way baxeen ninkii inaagti maamulihii oo yaaban oo meesha fadhiya uga tageen kadib waxay aadeen California usoo safreen California markay imaadeen kadib waxay dhiseen jaamacadda Stanford ee adduunweynaha hadda maanta ku taalo oo ka mid ah jaamacadaha adduunka maanta ugu waaweyn mid ka mid ah wiilkooda magacooda ugu magac dareen ninka magaciisa waxaa la dhahay Jane Stanford naagta magaceeda waxaa la dhahay Leland Stanford marka waxaa la yaab noqotay ninkaas iyo naagtaas u muuqdeen dadka oo iska masaakiinta ah oo dharka duruufka ay wateen ninka maamulaha oosan wiilkii ee dadkan ay wateen oosan wax qiimo uusan ugu fadhinin maantana in oo taariikhdiisa ilaa halkan ay soo gaarto marka waxaa cajab nuujaab ah weligaa qof haysan aniga iska bilaabaa idin qisadaas waa qisada cajiibka ee jaamacadda Stanford University ee maanta California ku taalo intaasoo dad soo saartay intaasoo qarni soo dhisneed waa cajiib waay marka qof walba waxaa la rabaa in qisadaas macnaha waxa ka qaatay aniga shakhsi ahaan ka baxsaday waxay tahay in qofna marna qofka qof inuusan yasin wuxuu ahaadaba qofka madharkiisa khaarijiga ama maxaa la dhahaa stylekiisa kore kama turjumayo ama qofka xataa wajigiisa kama turjumayo qofka wuxuu yahay qof walba ilaahay naga mid ah wuxuu ku abuuray sharaf iyo caqli iyo maskax soo qofna qof inuusan yasin qof ka fadli badan ma jiro ilaa ka cabsashada ilaahay marka la fiiriyo marka sheeko cajiib ah ahayd waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysteen insha Allah qisas qurux badan aan kaga tagaa habeen wanaagsan insha Allah sheeko dambe oo xiiso leh sheeko dambe oo wacan aan ku iman doonaa